munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay oo abaalmarin lagu guddoonsiinayay arday ku tartamaysay xifdiga qur-aanka kariimka oo ka kala socotay waxaana ka barta qaar ka mid a madaarista dalka ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha waaxda awqaafta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta salaadiin culimaawidiin waalidiin xubno ka socday jamiicatul qur'aan iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha markaska almadiina oo ka waramay muddadii uu socday tartanka iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen waalidiinta iyo culimaawidiinkii tartanka qaadaysay muddadii uu tartankani socday. inaan kasii ballaarino marka madaaristu inta kasoo qayb gashay waxay ahaayeen 20 madarasadood inta markaa imtixaanka usoo fadhiisatay waxay ahaayeen 14 oo shan baa ka qaadatay 14kaas waxaa ka mid ah daarisa lagu talagalnay inay dhiirigelin u noqoto oo walaaladooda ay kala qayb qaataan markaas sidaa la ajligeed waxaa sidee xaafadeena ku baraarugto qur-aan waxaan aragnay daa'ireen oo habeenkii meelaha iyadoo la socdaan qablaha amba dadka oo bilada ka qaato shiida oo dhib badan la yimaada sidaa la ajligeed bayn doonaynaa inaan jiil bedela kuwa aan keenno oo jiil wanaagsan oo culamo ah oo tarbiyadaysan oo qur-aanku ku degay oo ikhlaasna yeeshay kaa ayaa waxaweyaan insha allahu tacaala doonaynaa inaan ku wada dadaalo. salaadiinta iyo qurbajoogtii iyo waalidiintii halkaasi ka hadashay ayaa iyaguna waxay ku dheeraadeen faa'iidada ay da'yarta u leeyihiin tartamada noocan oo kale waxaanay ka codsadeen dadkii soo qabanqaabiyey tartankan inay sii labalaabaan oo ay dhammaanba gobollada dalka gaadhsiiyaan bay yidhaahdeen maadaama ay jiraan degmooyin ballaadhan oo codsaday in iyaguna la soo gaadhsiiyo tartamada noocan oo kale ah. agaasimaha waaxda awqaafta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay wasaaraddu diyaar u tahay dhiirigelinta dhallinyarada oo baratay qur-aanka kariimka taasoo uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo uu ku dadaalay sidii dalka looga hirgelin lahaa idaacadda qur-aanka kariimka si looga haqabtiro bulshaweynta reer somalilan dhegeysiga qur-aanka kariimka saacad walba iyo meel kastoo ay joogaan. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كان أصيغا خسارين أو بحتاجة ودينت إلى أولا برطو ويضوح لقود الرواية الإلالية وأنت كديرين مايو ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino lacageed lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gaashay tartanka qur-aanka kariimka halka ardaygii kaalinta koowaad galayna abaal gud looga dhigay inuu sanadkan cimrada xajka tegi doono.